marka in adeertu way ilaalin jirtay gabar cadaada la jiro gacmaha hoos u dhaqo oo waxay dhahdaa Soomaalida gacmo gal jir hoos baa loo wada dhaqaay arrintiina social media kala bixin oo waxa rabay laba iyo hal inaan ka dhaho afartan lejan ee maalmahan baraha bulshada qabsaday ee naga waalweeyo waxaana daliil kale kuugu sii filan haday shaadiyo qof ceeb la tahay Cabdifataax maanta garabkeeda muuse soo istaageen oo maanta ku muufaaneen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا القناة كنا هنيمان وأنا وولاشين حنان دكان هالكنا قداونا سنة وهن إيمان إن ما أنت برامج كنا حنقصق عدن دونا قايبو فربضان أريمها بالشدة ما أنت حق عصب سوشيال ميديا وحنا صوهي للجنكي هي قبر عداد لجنكي أياه سومالي دو حاس دحي ولا ليالو FBI مياه هورتو قد بدنا oo waxay badana shaqooyin badan ayaa daa Soomaalinahay waxa jira shaqooyin fara badan oo noo banaan oo qabsanay rabaan oo inaan qabsano u baahan tahay soo waxa la soo helay lejinkii weynay ee gabar cadaada ayaa la soo helay waana iyadoo reaction ka bixinayso balaas la daawana gabar cadaada oo reaction ka bixinaysa lejinkeedii taasho aan لكن أنا ويل كان وحأركب مر هوري حملنا جبر عدادو انتهسن هادلين مسا وقت يدك هادلي جرت الشيكة دي محلها قارد لاي إنه تهاي إنه ويل كان سوشيال ميديا سوق لي ومحلها ولهاي أرنتا وكهادلي مركزنا وحوين كم سوق أنا وحويلي كقف إسكهادلايو أما قف دبرقون depression وكل عيو حقاي صلاح الله إنه يهاي صوبته دولتنا عندنا مدشو دولة ويدلي سلام بوه الله يسر لك يسنو هذا يتيجي نقطة وأما عندن تو أما اللي يوايو وحرب أن لا يقرأ أنا دولة النرويج سيد حقيقة جيشيا هذا كانوا هذا very serious ما هذا الكفتن إيو أنيقو أمارة عياران كود منه سوف تصال له وحوي قطرة بدون يورك سنة أركي بوليس كانوا دعوذي وحياة بدنا سميه أنتي والله يصحر دور ترى اللي سميه دباتين فرق بدنا جرا وده كان شرع ودينا كان نقضي وأن ربوا إنه مارتي أن سكر شو بدبادين وقري وحياة بدنا جرا مدي لا واحد كده ويل كان أرنتيسا ويل كان أرنتيسا وحويان قفنا ودنك نوروين أما قدمنا يروب قف النور مركو قطر نتيس ودريمو دولة فرمك هذا ممكن هاي سمعناها قطرها كنولو توكل على الكوكو سمعنا والكبارايا وحيابها كوكينينا قطر كنولات نفتاد هذا قطر كسوان تهينا بحجر قف كاسا ودنك كنولين أدريس كيسي وحيس لو قرية oo macnaha ana la heli karin ma fahdeen soo markaani waxba ugu soo qaadin wiilka arintiisa waxay ahaday waxay u ekaada qof asiga isla hadlay ama qof oo depression ku dhaco kaleeto ayuu hadlay qofka markuu uu wax qatar u dareemayo oo intuu baxo oo wax cadeynayo waxa laga yaabaa qataro inay jirto qatar asaga wajahan oo asaga uu qatar u arko laakiin dadkan ama wadanka ku nool yahay ama dawladda ama booliiska midna oo san qatar u arkin sababtoo ay qatarta kugu hareersan hada sida saxda ee aadan u qeexin wax cadeymana aadan keenin qofna wax ma ku qabanayo dadka waxay ku shaqeynaa waa cadeyman
هديت هاي لجن كي دي قبر عدادنا أو قبر عداد إيتها قفك قطراك وهرير سناد أو شرعي كعشرين سنة وحاليها لجن إيا لجمدو بالنجاش الشيوع أرنتان نجسو قبية أو دad ilmo isku dhalaatihiin dad walaalaha tihiin gabar cadaadey adaa shalay xabadka u garaacanayso dhehaysa ninkan waa in adeerkay waan ku kalsoonahay naagna horteeda kuma guursanayo aduu guursanayo xataa bastada hoosteeda ku guursanaa saas dhan qofa ugu kalsoon tahay inaad dhulka ku jiidid oo sharciga ka ceshatid oo dhibaataysid abaayo macaani waa laga fiican yihiin bal in adeernimada maxay ahayd hees baa jirtay dhehaysa in adeertu waa is dhowran jirtay maxay ahayd heestee tolo marka in adeertu way ilaalin jirtay gabar cadaadey la jino gacmaha hoos u dhaqa oo waxay dhahdaa Soomaalida gacmo gal jir hoos baa loo wada dhaqaay arintiina social media kala baxo oo de looqa ku xalista kulay ismana badina laba qof oo isnacbo ma ikidina naga soo gabagabeeya sheekada waa anaga naga waaraysin shaadi sharaf waa lijamada saxmad waa lijamada saxda waxa rabaa inta shaadi sharaf iyo Cabdifataax inaan ka hadlo waxa rabaa si kale teen lagu hadlo waxa laga yaabaa dad fara badan inay ka hadleen arintaasito la yaabeen shaadi Cabdifataax waxa isku soo celiya ama shaadi Cabdifataax arinta xalay isku keentay iyo maxaa la dhahaa deexdal nuurshe oo dhahay waxa la joogaa qoys soo shaadiyo iyo Cabdifataax hadii kala tagaan ama hadii isqabaan waa qoys sababtoo ah unug ay ka dhaxeeyo waa hooyo abo waa qoys ka abtirsanayo oo qoys aan kala goyn waxaan biragoynin biyana meerin ayaa ka dhaxeeya labadooda sababtoo ah unug yar qurux badan ayaa ka dhaxeeya waa taajir hooyadiisa iyo taajir aabihiisa waa dad walaale taada kaleeto haddii adduunka dhan uu ka soo horjeesto haddii lagu dhiiqeeyo haddii adduunka dhan uu sharaftaada dhulka ku jiido soo qofka garabkaaga taagan waa qofka xaruurtaa u dhashay Cabdifataax waa boqor ilaaha boqor Cabdifataax waa nin rag Cabdifataaxna waa nin sharaf leh shaadiyana wax sharaftiisa qof walba uu ku cambaareen karaa qof walba uu ku cayn karaa qof walbana ceeb uu ku yeel karaa qof walbana sharaftaada ayuu soo faragashan karaa oo wuxuu dhihi karaa qofkaan inta sharaf ma lahan ama qofka taani sameysay nacab xumahay ama nin xumahay laakiin qofka dadka kuugu dhow waa qofka nolosha kula qaybsado qofka nolosha kula qaybsado wuu ogaan karaa hadaa qof xun tahay ama hadaa qof fiican tahay waxaa jira dad loo maleeyo ama bulshada dhexdooda uga eg dad wanaagsan inay yihiin qofka marka bulshada dhexdooda ku arkan uu dhaho alla ilaahay qofkan waa qof aad iyo aad u wanaagsan waa qof ilaahiisa ka cabsanayo waa qof noloshiisa iyo gurigiisa ku foogeen oo reerkiisa wax badan u qabto waxa laga yaabaa arinta saxda ah inay taas ahayn saxda waxa ogaan kara qofkan qofka guriga kula nool iyo qofka nolosha la qaybsado shaadiyana inay qof sharaf la tahay waxa ku cadeynayso maanta Cabdifataax inuu garabkeeda taagan yahay Cabdifataax ayada inay kala fogaaneen Cabdifataax ayada inay sanad social media dhinac ka soo fadhiisteen aysan cadow isku noqon isku haynin shaadiyo iyo Cabdifataax way isku hayaan hal cunug waxayna tusaale u yihiin dadka social media ku jiro iyo dadka fanka ku jiro oo dhan sababtoo ah dad waxa jiro 9 cunug isku haya 10 isku haya wixii dhil rabeen isku dhaleen ay iyo awowe maanta meek isku qaato social media ayagu fadhiyo iska haayo iska aflagaadeeyo waxba aan isku reebin ilaa isjafo oo wax walba isdhaho so ana soo daynin walaal daynin abti daynin adeer daynin awow daynin حتى قبيل أنا ديني لكن شاديو يعرف شريط ولا وفنك سكول جرا أحيان ويسجعل هذين ويسكر سدين عنق بيلاهي دحدول دقيق ويسفهم وين ويكرتين ويل جيان كذا أي حرير لا سميسه صحون أي أرنتو كصوب حذي وأي بناكي إمادة شادية هذي عيب لا أنتي سوف إيستو سكرسوني له ما يحضرشان هذي عيب سكو أكتها أما يسكو أكتها إنها تعقف عنا كرسوني تصلون ما يحضرشان وحنا دليل كلا تقو وصيف فلان هذي شادية قف عيب لا تاعي Cabdifataax maanta garabkeeda muususu istaageen oo maanta ku muufaaneen
shaadiyo waxaan leeyahay sharaf ayaad leedahay cabdifataaxna waxaan leeyahay waxaa tusaale u tahay ragga Soomaaliyeed sababtoo ah waxaa sameysay waxa jiro dad badan oo adiga ama kaa weyn ama la dhahay garaad bay ka weeyeen ama gu'b bay ka weeyeen ahna sameeyeen oo meek isku soo qaataan oo gabadhan walaashood marka adduunka dhan uu ku soo jeesto waxba kama qaadi karo haddaad adiga garab taagan tahay adduunka oo dhan hadduu kor u qaadana adiga adduunka oo dhan hadduu kor u qaado qofkan kor uma kacayso ilaa ma qofka guriga la joogo ama qofka nool ama qofka nolosha la qaybsado uu kor u qaado qofka kaliya qofkan kalsoonidiisa dhibaateyn kara iyo sharaftiisa hoos u dhigi kara waa qofka nolosha la qaybsado ama ha noqdo qof isqabaan ama ha noqdo qof ay kala tagaan qofka kaliya ee noloshiisa kor u qaadi karana waa qofka nolosha ay wada qaybsadeen adduunka oo dhan oo kasoo wada horjeesta waxba kama qaadi karo haddii qofka nolosha kula qaybsado uusan asaga dhulka ku wajiyo marka waxaan leeyahay dadka isqaba ee bari kala tagi doono ama dadka kala tagay ee awlaad isku dhalaamaan isku dhalin tusaalaha idin noqoto dhaqanka Shaadiye iyo Cabdifataax dadka xiriirka ka dhaxeeyana tusaalaha idin noqoto Shaadiye iyo waliba maxaa la dhahaa Kiyo qadarkeeyo oo kale Shaadiye haddii qof xun tahay labada nin xiriirka midna kala dhaxeeyo midna ay ilmaha u dhashay nolosha kasoo dhex martay ay soo guursadeen soo may garab istaagi lahayd shala markii la caynaayo la cabaareynahay hadal yar iyo howl badan wuu soo hadlay Kiyo wuxuuna dhahay gabadhaas oo gabar walaashay waa gayaankeyga sharaf ayayna leedahay sidoo kaleeto Cabdifataaxna garabkeeda ayuu taagan yahay soo naag haysato rag dib ugu laabato rag sharafteeda ilaaliya Soomaaliya dhan haddii ka soo horjeesto waxba kama qaadi karto marka tusaalaha idin noqdaan qoyska wanaagsan qofkii shalay afka ku amaanaysa maaha maanta inaa ku caydid si walba qofkan u xumaado wanaag ugu gud xumaantiisa wanaag ugu bedel qofkii ku xumeeyo wanaaji adigana wanaag ayaa helaysaa marka Shaadiye waxaan leeyahay sharaf ku noolow Cabdifataaxna waxaan leeyahay ku hambalyeynaya sababtoo waxaa tahay ragga Soomaaliyeed ee la yaqaanay ee dahay ee dhaqanka aan u lahayn ee gabdhaha dhowri jiray garabna istaagi jiray micna ma sameynayso dadaa dhahay Shaadiye Cabdifataax dadkii dhahay way kala tageen sharaf ma sameynaysan sababtoo Shaadiye meel ay soo istaagtay waxay tiraanayay Cabdifataax waan kala tagay shukaansigana xeeb maaha ninkan xirir ayaa naga dhaxay way isku soo laaba karaan Shaadiye Cabdifataax maantay way noqon karaan dad isku laabtay oo dib isku guursaday way noqon karaan dad xiriir oo laatinimo ka dhaxeeyo oo ilmaha isla korsanayo sideedana haddii isqabariyo haddii isqabilba dadka ayagaa iskaga dhow cunugaa ka dhaxeeyo ayagaa iskaga dhow guuraa soo dhex maray ayagaa iskaga dhow fankiyo iskula jiraan oo waa dad isla wada shaqeeyo oo isku shaqe oo hal meel ka wada shaqeeyaan marka labadaas kalama go'aan waxba ha ku daalina waxaan leeyahay cadowgiina u noolaado hore u socda soo gabar cadaado iyo laakinkeedana waxaan leeyahay walaalayaal gacmihiina hoos u dhaqa oo wada heshiiya oo arintan naga daaya barnaamijkeena maantana halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaan rabaa 2 iyo 1 inaan ka dhaho 4 legend ee maalmahan baraha bulshada qabsaday ee naga waaloyo halkaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka haddana la soo gaarteen please subscribe noo saar kanaalkeena soo bir asxaabteena lana qaybso familkaaga aad iyo aad ayaad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu